waxaa baryahan soo baxaysa dadkii dhaqanka inuu ku kala aragti duwan yahay ama bulshada dhexdeeda guux badan uu ka jiro. waxaan xasuustaa dhibaatadii ka dhacday iyo xasuuqii uu rajiimkii Muuse Biixi u geystay deegaankan in dadka qaar ay weli ay mataqaanay hilmaamsan yihiin. ma ahayn dadkani waxa uu dhintay, waxa uu dhaawacmay, waxa uu hantida burburka naf iyo maal laba u geystay ma ahayn wax ka baxsan aayahooda SSC Khaatumo. waxaan xasuustaa kacdoonadii u horreeyay ee kacay in hoteeladii aan ku shiraynay nalagu soo dumiyey, nala damcay in mataqaanaa nala hujuumo, nala qabto, nala laayo, ee ilaahay fadligiisa uu mataqaanaa ilaahay nagu badbaadiyey. waxaan xasuustaa guddidii 33 aaya ka talinta ee gobolada SSC Khaatumo 6 February go'aamadii ay soo saartay in Muuse Biixi iyo rajiimkiisii ay noo qabteen shir la yiri ka noqdo qodobadan. oo haddaan qodobada mataqaanaa aan ku adkaysanay annagoo ka fiirinayna aayaha iyo danta deegaankan iyo dalkan iyo dadkan ku dhaqan gobolada SSC aanu runtii iyadoo ay go'aan qaraar tahay aanu qaadanay. Muuse iyo raggiisiina aysan ku farxin arrinkii nooca ah 6 February aanu soo saarnay in maanta dadka qaar ay ku tumanayaan kuna aragti duwan yihiin waa wax laga xumaado. waxaan leeyahay shalay maamulkii Mariixaan Siyaad Barreysay qabadiidii waxa ku boobtay dowladda Soomaaliya kii saaqna shalay baa dascaanood ka diiday maano fiqshin iyo oo nin ayro habar gidiir oo hawiya hiraaba baad ugu xukumaysan maamulka gaarka diidii. waxaan leeyahay arrinka ku soo celiya wada noolaashiin iyo walaalnimadeennii maamulka idin gaarka aad samaysateen deegaanka aan cadeeyay iyo miyigeeda iyo inta fiqshin digo kama shaqayn karo walaalnimada wada noolaashaan isugu nimaado. Cabdikariin Maxamed Cabsi ahna caabadka guud ee beesha reer fiqshin waxaan codkaan halkan ku duubay in qalbiga laga midoobo, in fikirka laga midoobo, in wax qabadka laga midoobo waa muhiim. midnimadu marka macnaheedu ma aha inaan isku si wax u aragno. ilaahay baa bini aadanka si kala duwan maskaxdooda u sameeyay, fikradahana ku kala leexiyay. waata Soomaalidu tiraahdaa maan rag waa mudacyo. laakiin haddii qalbigaygu uu nadiif yahay oo ninka walaalkay ah markuu war sheego ama uu arrin fikrad soo gudbiyo fikirkaasi uu ila muuqdo saliim, waxaan rabaa qalbigayga inaan ku dajiyo oo aan laqo oo iraahdo Allah ilaahay fikradaasi waa fikir dadka iyo dalkaba anfacaya inaan iraahdo. waxyaalaha tafaraaruqa keena waxa kamid ah dhanniga iyo shakiga iyo been abuurka ama xanta. waxyaalahaas waa waxyaalaha aad la inooga digay. haddaad iska shakido shaki uu ku galo oo asal Allah ilaahay Muuse ka waday ama qof hebel wati. bismillaahi raxmaani raxiim. waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan cadaynaynaa haddaan nahay beesha Faqashini inaan bataatanba maamulkaas Khaatumo ee ay samaysteen beesha dhulbaantay inaanan ka mid ahayn. inay samaysteen waxaa cadayn u ah madaxweynihii waa dhulbaante, madaxweyne ku-xigeenku waa dhulbaante, ra'iisul baarlamaanku waa dhulbaante, taliyaha ciidanku waa dhulbaante, taliyaha boolisku waa dhulbaante, taliyaha nabad sugiddu waa dhulbaante. waxaan u malaynayaa dee iyagu baa dhistay maamulkaas. Faqashini wax la yiraahdo maamulkaas ku jiraana ma jiraan. Soomaalina saasay nagu ogaanaysaa inaanan anagu bari ka nahay maamulka.